وشركة جتنا كوبية هاي وسلام يا أمة الإسلام كا أما أمة الصومال الأمريكا تيجوا والسلام يا سلامة الإسلام كا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقول من شركة جتنا كوبية بيش بلارن بيش كهاتيس اسمه إسحاق maanta inay ku walaaloobaan oo danahooda iyo maskabkooda iyo aayahooda ay kaga tashadaan shirka u calaamiyey ayaa saboolaya ku raacsanahay intii aan ogeyn waxaan u sheegayaa shirkaasi inuu ka dhacayo gacan libaax ciddii beeshaasta ama qolbajoog ama qolqoljoogii waa inay ka qayb gashaa tala iyo tusaale loo tagtaa. waxaase u sheegaya xukuumadda ama reer somaliland inaanu shirkaasi ahayn shir dowladda iyo waddanka midna wax yeelaya. waa mid aayaha iyo maskabkay dowladnimada ku leeyihiin iyo aayahooda sareera kalama tashanayeen aanu kaga tashanayno. waa mid nabadgelye leh, waa mid daris wanaag leh, waa mid dowladda si loo dhisi lahaa loo qaban lahaa farowgeeda laga qabanayo, maaha mid colaad iyo dagaal iyo dhibaato keenaya. waxaan dowladda ka codsan lahaa iyo beelaha kaleba ama reer somalilandba inaanay shalaysan oo arkin mid dhibaato lagu haynayo. cid walba annaga uga laxajacabnimada haddana beesha gaxajisaan nahay, annaga uga ayaabitooyo badan, annaga uga lexajaclo badan. waayo inta aan anagu usoo galay somaliland beelaha kale beel usoo gashay ma jiraan. inta korneel kaga dhimatayna nin reera kaga dhintay ma jirto. marka anaa aayahooda ka jecel, anaa dhismahayaga wadda somaliland jecel, anaa cid walba kaga lexajaclo badan. mid dhib keenaya maaha. waartinimadeeda iyo daris wanaagayga iyo dadka saa loo macaamili lahayn iyo sida aanu masabkeega u doon lahayn horumar u gaari lahayn ee aanu dalka u dhisi lahayn ee wax uga qabsan lahayn ayaanu kaga tashanayna. taan reer walbana uu ka tashadaa uu sameeyaa. markaa dowladda iyo reer somaliland bay dhib u arag baan runtii ayaan yar jecla saa u arkaan aayaha waddankuna aanu ka talamayno iyo wanaagooda. beeshaas ismaaqsaaqana waxaan leeyahay meel kastaad joogtaan iyo goob kastaad joogtaan shirkan dhaqaale iyo gacan iyo talaba waa laydinka baahanay. qurbajooga waxaan oran lahaa mar koobaad iyo mar labaad maleeyahay inay si migla u tagaan 15 bishu dhacaya. waxaanu ka dhacayaa gacan libaax. waxaan ka codsan lahaa inay si muglo miisaan leh uga qayb galaan wixii beeshaas ay khusayso shirkaasi. waana salaamaya waana bogaadinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. halka hawsha ka sii wada hawlaynu ka seexanaya maanta soo toosiyeen waa mid loo baahan yahay. سأستعد كوغاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.